axmed maxamed cali kusimaha gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Togdheer sida oo kalena ka mid ah xildhibaanada xilka banaynaya ee golaha deegaanka Burco oo waraysi gaar ah Bulsha TV ku siiyay hotel Daalo ee magaalada Burco ayaa ka hadlay bulshada Burco waxa ay ku xasuusan doonto golahoodii deegaanka howlaha shaqo iyo mas'uuliyadda ballaaran ee sugaysa xubnaha golaha deegaanka wuxuuna gudoomiye Axmed Afyare hoosta ka xariiqay caqabadaha ka hor iman kara golaha deegaanka cusub iyo qodobo kale. marka hore golaha deegaanka waxa haystay xeer dabar ku ah degmada dabeetana ka dacwooda baan isnoo waxaan tagnay guurtida anagoo dhowr iyo 10 xildhibaan baarlamaanka aan tagnay guurtida aan tagnay intii aanu ka cabanay ayaa loo sikiyay aanu cabashadayadii halkii wax laga qaban lahaa wixii degmadu qaadan jirtay baa kuwii aanu ka cabanay wax loogu sii daray oo carqaladaasi way hor taagan tahay degmada ama kuwii hore joogan ama kuwii ha joogan waxa kale oo qoladan baarlamaanka waxaan ka soo jeedinayaa nin kastoo baarlamaana waxa ku xiriirsanaa nin deegaana baarlamaanka imika inaga tagaynaa markaad meel ka tagayso arrin wacan baa laga tagay baarlamaanka imika inaga tagaynaa sharcigii way ku sii galgasheen way ku tunteen golihii baarlamaankana cirka geeyeen kuwii deegaanadana dhulkay geeyeen marka waxa la nin kastoo baarlamaana waxa kugu lamaanaa nin golo deegaana laba xildhibaanna waa ahaydeen codna waa wada lahaydeen war isku xasaanadna ahaada isku xuquuqna ahaada waxa labada nin ee sanduuq wax loogu wada ridayay midna siirooga ka dhigay midna karaameeyay ee mushaharka u qoray waa cadaalad darro labada nin sanduuq baa wax loogu wada riday dad baa u wada codeeyay golaha baarlamaanka imika inaga tagay gole balaaki way ku sii galgasheen guru balaaki wadanka marka waxaan leenahay war xeerka dib ha loo eego degmooyinka bariga dib ha loo eego golaha haayo de anagu waxaanu lahayn xasaanad baanu lahayn wacan waxaanu lahayn miisaaniyadda imika uu wasiirku u samaystay barnaamijyada anagu waanu golaha deegaanku golayaal madax bannaan bay ahaayeen marka waxaanu leenahay war nimanka waajibaadkoodii shaqaha loo soo celiyo oo golayaasha deegaanadoo dhan u degmo gooniyo u hadli maayo waxaanu isleenahay waa lagu xasuusan doonaa wax badan oo qabanay waa lagu xasuusan doonaa insha Allah bismillaahi kariim oo horumarina oo xagga jidadka ay u badnaayeen horumarintayadu xagga caafimaadka waxbaanu ka qabanay xagga waxbarashada waxbaanu ka qabanay marka kulli lama dhamaystiro tabasha way jiraysaa laakiin de waa ogtahay oo Burco inta noogu nimi laamiyay inta imika marasba waa ogtihiin marka wax badan waa qabanay wax badan waa dhimay iyo tii gobolka ka dhacday isku mid bay ahayd doorasho de wacan bay ahayd hawl la sugayay bay ahayd waana soo dhaweynay waana ka qayb qaadanay xildhibaan ahaan iyo xusbi ahaan waa ka qayb qaadanay de isbedelkuna waa sunnada dawladnimada marka waa soo dhaweynayna doorasho wacan bay ahayd sidii u dhacday iyo sidii loo agaasimeyba si wacan bay inoo dhacday nabadgelyo leh waa soo dhaweynaya dhalinyarada saddex xusbi ka soo baxday ee ku soo baxday golaha deegaanka waa soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa waana meel waxbay ka bedeli karaan qof walba halka meesha uu joogo markuu yimaado wuxuu ku sii daraa insha Allah bismillaahi kariim waxaan rajaynayaa inay ka bedelmaan oo ay wax badan qabtaan waa maskax furan oo yar oo firfircoon waxaan isleeyahay wax badanna waa ka bedeli karaan dadweynaha gobolka degmada Burco waxaan leenahay hal taageero hal la shaqeeyo haday tahay gudida xaafadaha iskaashatooyinka ururada bulshada hal la shirkadaha hal la shaqeeyo baan leenahay dhalinyarada soo baxday sidii aan ula shaqeyn jirtay si ka wacan baa loola shaqeeyo baan leenahay in Allah ku asturo xilka loo igmaday in Allah ku asturo in ay dadka isku wadaan dulqaad muujiyaan golahooda isku wadaan meeshu waa meel tuhun waa meel hawleed waa meel hawl badan marka waxa leeyahay dulqaad iyo dadaal iyo odaynimo ku dara dad isku wad ku dara wada tashi ku dara waxay ka shaqeynayaan de waa magaaladeennii waa horumarinteennii waa bilicdeennii marka iyana waxaan leeyahay gacan ha la siiyo ha lala shaqeeyo iyana waxaan leenahay deedaadiina waa yarartay laakiin odaynimo ku dara aqoonna waalidina odaynimo ku dara
axmed maxamed cali afyare oo aan weydiiyey saamaynta ay ku yeelan karto isbahaysiga xisbiyada mucaaridka somalilan doorashada xubnaha ay u soo xuleen shirguddoonka golaha wakiilada somalilan ee cusub hadal ka soo yeedhay xubno ka mid a xisbiga ucid ayaa waxa uu kaga jawaabay xubnaha iskaashanaya waa xubnihii soo baxay xubnaha soo baxay ayaa iskaashanayay oo isu kaashanayay guddoonka baarlamaanka xubnaha dhacay dee cod kumay lahayn marka haddaan xubnihii dhacay dee iskaashan xubnihii soo baxay oo iskaashadeen uma arag marka waxaa laga yaabaa dee in xubnihii dhacay iskaashadeen oo rabaxoona dee uu ahaa guddoomiye balaa kuwa dhacay buu guddoomiye u yahay kuwa soo baxay baa laga rabay inay iskaashadaan oo shirguddoonka isku kaashadaan kuwa soo dhacay shirguddoonka sawd kumay lahayn iyo codtoona markaa weli ma arag xubno soo baxay oo u cida oo ka hadlaya iskaashiga xisbiyada dee xubnaha dhacayna waabay dhaceen markaa inay dee xisbigii ilaa waa kii tallaabada ka qaaday aad arkaysay markaa xubnihii soo baxay weli kama hayno wax jawaaba kuwa dhacayna dee halkaasaabay ku hadheen markii horeba labada xusbe iskaashigoodu dee horena way isu kaashan jireen oo kulmiyi iyo cidba way iskaashadeen iminkana iskaashigoodu wax dhibaataa ma laha mucaaridna waa mucaaridun ama laba xusbi ahaada ama saddex xusbi ahaada muxaafidna waa muxaafidun markaa arrinkaasi si wacan buu u shaqeeyey waanu shaqaynayaa deegaanadii wuu ka shaqeeyey maamuladii degmooyinka wuu ka shaqeeyey insha allah baarlamaankana wuu ka shaqayn doonaa waana toosin iskaashigoodii ma aha mid taban ma aha kusimaha guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka togdheer ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ee gobolka axmed afyare oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in hadal uu jeediyey siyaasiga maxamuud xaashi oo la xidhiidha doorashooyinkii isku sidkanaa ee somalilan ka qabsoomay in ay caddayn u tahay khilaafka ka dhex taagan xisbilxaakimka kulmiye waa sida uu sheegay horta maxamuud xaashi waa nin kulmiya waa xusbiga kulmiye waa asaasayaashiisii dee kulmiye dhexdiisa dagaal ka jira isagaa wax kala tabanaya isagaa isu qoor tusanaya isagaa isu dhibin lisanaya markaa dee waa kulmiye dhexdiisa umbaan u arkaa ishaysi dhexdiisa umbaan u arkaa markaa ishaysiga ina xaashi waxaan u arkaa arrin ku kooban xisbiga kulmiye iyo tabashadiisa oo uu ka tabanayo maxamuud xaashi wax ka tabanayo oo raggii uu ku soo dhabarjabay uu ka mid ahaa oo uu ka waayey wixii kaga mudnaa uu ka waayey umbaan u arkaa dee xaqna uu leeyahy ninku inuu wixii uu wax la leeyahay uu ka cawdo oo uu dareenkiisa muujiya xaq uu leeyahay waa fahmi kayse xirsi bulsha TV burco